Asalaamu calaykum saxaabay isku soo noqosho wanaagsan halka aad fiidiyowga ka daawanaysaan waa Dr. Xaashi Network. Maanta waxaan rabaa in idin la wadaago mid ka mid ah xanuunada amiskayga oo jilibka ku dhaca. Waa dhowr xanuun way badan yihiin, dhowr fiideo aan ka duubi doonaa, laakiin waxaan ku bilaabaynaa rheumatismada ama osteoarthritis of the knee. Isla socosho wanaagsan. Jilibka markaan caadiyan aan fiirinayno jilibka oo haltiga oo aan waxba qabin sidaanu clean u yahay labada lafood, midaas kor ka timaada femur la yiraahdaa, midaana tibia la yiraahdaa. Marka arjawaaas u dhaxeeya waa clean sida aad ka arkaydin, space-ku uu weyn yahay ama meelaha emptiga u dhaxayda. Marka uu orthopedic changes uu ku dhaco ama rheumatism ku dhacdo wuu isku soo dhawaanayaa meeshaas oo cartilage ama arjawdaas oo dhan nooc kale noqonaysa. Marka image x-ray idinka tusi doonaa. Marka is the most common arthritis affecting the joint knee. It occurs when the protective cartilage markii cushion-kaas sida idin sheegaba uu dhamaado ay dhacdaa. Inta badanna certain age jirto dadka waaweyn u badan tahay, laakiin 40-30 dadka jira xataa waa ku bilaabataa, waliba dadka aadka u cayaara ama orda. Marka the key differences oo hadda macnaha oo key distinctive ka macnaha waxyaalaha lagu garto knee arthritis-ka lagu garto waxaa ka mid ah pain, xanuun, stiffness ama inay adkaato oo laftiisa dhaqdhaqaaqeedii yaraado, swollen inay bararnaato, mobility-geedii inay si fiican aysan u dhaqdhaqaaqayn. Article-kan laftiisa anaa qoray aan idinkaga aqrinayo oo Spinacare Mobile blog la yiraahdo oo aan ku qoraa jirta iyadoo Ingiriis aan ku qoro, kan laftiisa anigaa qoray. Marka calaamadihiisa haddaan ka bilowno xanuunka oo waliba movement-ga xilliga uu dhaqdhaqaaqa u jiro xanuun dareemayda, joint so stiff ama adkaata, morning-ka subaxii markaad soo kacday aad joint-ku stiff u noqoto, swollen jilibka geesihiisa oo barar uu soo galo, haddaad riixdo xanuun ama tenderness aad dareemayso, dhawaaq aad maqasho sensation ama qacacdaas waa lagu gartaa, weakness marmarka qaar inuu daciif noqdo oo xooggiisa uu yaraado. Waliba xanuunku wuxuu ugu badan yahay markaad stairs ama jaranjarooyin iyo kor u raacayda iyo wax badan markaad taagnaato. Risk factors waxaa la yiraahdaa waxyaalaha soo dedeji kara arthritis-ka oo jilibka gasha. Waxaa ka mid ah obesity-ga, culayska inuu qofka miisaankiisu aad u badan yahay risk factor-kay ka mid tahay. Injury hore iyo surgery oo ama waxyaalo kale oo jugahoo gaaray sports iyo inuu jilibka jugo kala gaareen ama fracture uu ka daawoobay waa soo dedejidaa. Genetic dadka qaarkood waa heredit oo waa la iska dhaxlaa arthritis-ka soo degdegta lafteeda, laakiin sidaa uma badno. Markay noqoto diagnostic-ka iyo waxyaalaha lagu garto, x-ray-da ugu horeyda laga bilaabaa. X-ray-da markii la fiirinayo joint space narrowing waxaa la yiraahdaa osteophytes, lafa geesaha u baxbaxaa laga arkaa, changes in the bone structure. waa idin tusayaa x-ray, you can zoom in a little bit. X-ray-ga markaan fiirinayno midda normalka waa sidaas, space-kaas weyna u dhexeeya waa clean, little bit darker. Laakiin marka ay noqoto oo orthopedic changes uu ku dhaco ama rheumatism wada dhacday, space-kiyaa yaraanaya, like space narrowing aan nirahnaa raajada markii la fiirinayo. Waxaa kaloo dhacayda osteophytes, waxaas oo geesta lafahaas yararka oo geesta u baxay oo bone spur-kana waa la yiraahdaa, laakiin osteophytes la yiraahdaa markay sidaas harfuhu ay u baxaan. Waxaa kaloo fiirinaa oon ku aragnaa wax la yiraahdo sclerosis ama increased density, midaan say xoogaa smooth gray u tahay, midaan cadaadka ku badan way wada cadcadda. Marka waxyaalahaasoo dhan waxyaalaha lagu garta ka mida. Waa sii wadaynaa sida hore u sheegay, maaragtay markay noqoto conservative care-ka ama sida loo daaweeyo waxaa inta badan laga bilaabaa exercise iyo jimicsi iyo physiotherapy laga bilaabaa, weight management culayskiisa qofku rido. Daaweyn markay noqoto daawooyinka oo xanuun baabi'iya iyo anti-inflammatory-ga iyo loo qaataa. Waxaasoo dhan hadday waxba ka tari waayeen injection wax la yiraahdo lagu dhiftaa jirta oo dad ku takhasus ay ku dhiftaan orthopedic specialist ama chronic pain management dada. Surgery-ga ama knee replacement waa option-ka ugu dambeeya markay aad ay u daranto lafta ay taabatay. Marka videoga halkaas aan kusoo koobaynaa, videogaas yarka ah oo knee arthritis waxyaalaha oo maaragtay xanuunada jilibka ka mid ah ku dhacay ka mid tahay. Waxyaalaha kaloo noo soo socda waxaa ka mid ah ligaments oo ama taagaga jilibka haya oo PCL, MCL, SCL oo taagaga ama maaragtay ligamentiyaasha seedaha jilibka haya, kuwaas injury-ga ku dhaca. Waxaa kaloo noo soo socotoon kasoo hadli doonaa diskiyada ama canjariyada yaryar oo jilibka kala celiya oo meniscal iyagana injury la yiraahdo.
waxaan kaloo kasoo hadli doonaa waxa la yiraahdo isheeg bakery cyst waxa la yiraahdo oo popliteal fossa xagasha dambe qofka ay bararto xagasha dambe barar yaro xagasha jilibka halkiisaas ka galo oo hadhowna swollen keeni kara iyo in jilibka oo dhan u bararo. bakery cyst la yiraahdo waa burobiyood, kuwaas oo dhan waa kasoo hadli doonaa. marka isla socosho wanaagsan, fiidiyoda isla sheer gareeya, like gareeya. aad iyo aad u mahadsantihiin. Salaamu calaykum.